Dowladda Albania ayaa mamnuucday guud ahaan isticmaalka aaladda TikTok muddo hal sano ah. Albania ayaa ku dhawaaqday in ay mamnuucday TikTok muddo hal sano ah kadib markii la dilay wiil dhalinyaro ah bishii hore, taasoo keentay walaac ku saabsan saameynta baraha bulshada ay ku leeyihiin carruurta. Mamnuucidda abkan caanka ah ee muuqaalada gaagaaban ayaa dhaqangeli doona horraanta sanadka soo socda. Ra'iisul Wasaare Edi Rama ayaana sheegay Sabtidii kadib markii uu la kulmay kooxaha iyo waalidiinta iyo macallimiinta dalka oo dhan, hal sano waxaan si buuxda u xiri doonaa qof walba oo isticmaalo abkan, ma jiri doono TikTok gudaha Albania. Rama ayaa sidaas yiri. Ma jirin faallo degdeg ah ama fariin ka timid TikTok oo la xiriirta go'aanka dowladda Albania ayaa yimid kadib markii wiil 14 sano jir ah uu toorey ku dilay bishii November wiil ay isku fasal ahaayeen kadib markii uu muran dhexmaray labada wiil. Murankaasi ka imaaday baraha bulshada. Maamulka Albania ayaa la kulmay ama shirar kala duwan la yeeshay macallimiinta iyo waalidiinta dalka, kaasi oo ay uga hadlayeen dilka wiilka dhalinyarada loo geystay. Rama waxa ay si gaar ah ugu eedeysay TikTok in ay horinayso rabshadaha ka dhex dhaca dhalinyarada dugsiyada ee dalkan Albania. Fiidiyoyaal gaagaaban oo ay carruurta isugu dirayeen ayaa lagu eedeeyay TikTok, kaasi oo u dhexeeya dhalinyarada, wuxuuna salka ku hayaa dilka wiilkaasi dhalinyarada ah loo geystay. Dhibaatada maanta ma ahan carruurteena, dhibka maanta waa annaga, dhibka maanta waa bulshadeena, dhibka maanta jirana waa TikTok iyo dhammaan kuwa kale ee carruurteena afduubanaya, ayuu yiri Rama. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Albania ay arki doonto sida shirkadaha iyo dalalka kale ay uga falceliyaan xiritaanka halka sano ah ka hor inta aysan go'aansanin in la ogolaado shirkadda inay dib u shaqeyso. Mucaaradka ayaa diiday go'aanka dowladda ee lagu mamnuucay abkan TikTok. Go'aanka kalitalisnimada ah ee lagu xiriyo madasha warbaahineed ee TikTok waa fal xun oo ka dhan ah xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda, ayuu yiri Ina Soba oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga ugu weyn mucaaradka dimuqraadiga. Waa fal doorasho oo saafi ah iyo ku tagrifal awoodeed in lagu caburiyo xorriyadda hadalka, ayuu yiri. Dhowr wadan oo Yurub ah oo ay ku jiraan Faransiiska, Jarmalka iyo Belgium ayaa dhaqan geliyay xanibaadyo isticmaalka baraha bulshada ee carruurta. Mid ka mid ah xeerarka adduunka ugu adag, Australia waxay ogolaatay bishii November mamnuucid dhammaystiran oo baraha bulshada carruurta ah. TikTok ayaa sidoo kale la kulantay eedeymo basaasnimo ee gudaha Mareykanka, waxaana baaritaan ku haya Midowga Yurub oo ku aadan in loo adeegsaday doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Romania, taasi oo ku guuleystay musharax midigta fog. TikTok waxay si gaar ah u soo jiidataa da'yarta iyadoo ay muuqdaan muuqaaladeeda muuqaalo aad u xiiso badan oo gaagaaban, waxayna leedahay in ka badan 1 bilyan oo isticmaalayaal firfircoon adduunka oo dhan. Haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sida aadka ah loogu isticmaalo aaladda TikTok. Ma tahay waqtigii la xanibi lahaa?